mu'asasada Al-Karam ee faafinta dacwadda islaamka ayaa magaalada Burco xaflad ballaaran ugu qabatay xiritaanka dawladiineed ay mu'asasadaasi u samaysay ardayda yara taasoo lagu xifdisiinayay axaadiista iyo culuum diini ah. dawladiineedkan ay qabatay mu'asasada Al-Karam ayaa waxa iska kaashaday shirkadda Talasom iyo waliba mu'asasadaasi Al-Karam. munaasabadaasi oo ahayd mid si ballaaran loo soo agaasimay ayaa ugu horreyntiiba waxa ka hadlay gudoomiyaha mu'asasada Al-Karam Sharmaake aw Muuse Xasan iyo Sheekh Cali Mahdi oo ka socday shirkadda isgaarsiinta Talasom waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan. waxaan u mahadnaqayaa waalidiinta ka soo qayb gashay xafladan aynu ku dhiiri gelinayno ardayda la baray culuumta sharciga ah iyo culimada ka soo qayb gashay xafladda. ardaydu waxay ahaayeen 40 arday bay ahaayeen loo qabtay dawladda 15 bishii Ramadaan bay dawladdu bilaabantay waxaana soo khatimantay maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa. ardaydana aragtaan ee da'da yar leh oo muddo kooban la xifdisiiyay duruus iyo culuum sharci ah oo ka kooban caqiido iyo axaadiis iyo fiqhi iyo siira nabawiya. lidaalika haddii ubadka laga shaqeeyo oo culuumta noocana la cabsiiyo oo la sharaabiyo waxaynan malaysan karin baa ka soo bixi doona. waxaa iyana mahad mudan culimadii iyo macallimiintii ka qayb qaatay dhigista iyo soo saarista ardaydan. barnaamijkani wuxuu marayaa sanadkii 6aad ee uu qabsoomo. intaaba waxaa waday shirkadda Talasom laba dhinac baa iska kaashada mu'asasatul Karam lidacwati wa tanmiya oo fulisa barnaamijka iyo shirkadda oo hantida ku deeqda si da'yarta aragtaan culuumta sharciga ah loo qaybsiiyo. marka shirkaddu waxay mudan tahay mahadnaq. mu'asasada Karam oo runtii ah mu'asasad waxa qoray u taagan ay tahay inay khayrka iyo dacwadda ka shaqeyso. waana mu'asasad runtii aad u ballaaran oo u baahan in la iska rabtaago had iyo jeer aalaba oo cid kastaaba oo danaynaysa in dadku ay islaaxaan inay iska rabtaagaan. aad baad ugu mahadsantihiin. qalbigu waa weelna waxa lagu shubto unbaa markaa uu hayaa. waa tijaabo barnaamijkan aynu samaynay sanadkii 6aad galay oo ah ilmo da'yar in qalbigiisa wax lagu shubo waxa lagu shubana uu hayo. marka waxaan la waxa khayrka iyo wanaagga aynu ku shubno weelka waa weel nadiifa waa weel culan waa weel cidaadan waa weel waxa lagu shubo dhitayn kara yaani ina ka xumaani waalidow ee khayrka aynu ku shubno quluubta caruurta yaryar insha Allah ta'ala. dhinacoodana ardaydii baratay axaadiista iyo culuumta diiniga ayaa halkaasi ku soo bandhigay cilmiga ay barteen. culimaa u diin waalidiin iyo marti sharaf kala duwan oo halkaasi ka hadlay ayaa mu'asasada Al-Karam ku amaanay doorka ay kaga jirto faafinta dacwadda islaamka. waxaan aad iyo aad u xasuusinayaa khayr ilaahay wajaakumullahu khayran caruurta ha lagu ilaaliyo waxaas insha Allah ta'ala la baray. mahadnaqa haday tahay shirkadda Talasom iyo haday tahay mu'asasada Karam iyo haday tahay marti sharafta oo ay culimadu ugu mudan yihiin oo waalidku ka mid yihiin haday tahay macallimiintii ardayda dadaalka gelisay iyo haday yihiin ardayda laftoodaba waa u mahadnaqayaa. ilaahayna tabaaraka wa ta'ala waxaan inooga baryaa dhamaanteen in dambigeena iyo dambigii waalidkeenaba ilaahay uu dhaafo. farxad iyo reeyreey bay inoo tahay dhammaanteed culimada dhalinyarada iyo hooyooyinka inteena waa farxad iyo reereyn bay inoo tahay. waa nimco ilaahay inoo soo kordhiyo aynu ku shukri naqno. culimada iyo macallimiintana jazakallahu khayr. iyadana shirkadda Talasom mu'asasada Karam oo iyadana dadaashay oo iyadana dowrkeeda dacwada qaalin weyn kaga jirta. iyagana waxaan leeyahay ragga hogaaminaya waxaan leeyahay way mahadsan yihiin. ilaahayna juhdigooda ha barakeeyo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala taabkooda ilaahay inaan ka rajaynayna inaanu ka qasaarayn. dhalinyarada dalaadaysa oo iyaguna wax baranaysana ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagana inuu waafajiyo sida xaqa waafajiyo oo diintana uu u fududeeyo. waalidiintana ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu kuwa ubadkooda ku dadaala ay noqdaan maxaan idhaahdaa siday maaragtay masalan maxaan idhaahdaa noqdaan ka uga mid noqdo qof waliba wiilkeeda gabadh waliba jiilka ilaahay ku bedelaayo. ilaahay ummadan aad hoos ugu dhacday oo diinteedii iyo akhlaaqdeediiba ay hoos u dhacday. jiil baa ilaahay ku bedeli doona oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ummad hadduu khayr la doono
jiil wanaagsan maalod wanaagsan ayaa ilaahay u soo saaraa marka waxaynu doonaynaa jiil wanaagsan oo caqliga ka dhisan cibaadada ka dhisan cilmiga ka dhisan akhlaaqda ka dhisan ugu dambeyntii waxaa abaalmarino iyo shahaadooyinba la guddoonsiiyey ardaydii ka qayb qaadatay barashada casharada diiniga iyo weliba macallimiintii wax soo bartay ardaydaasi mu'asasada alkaram ee faafinta dacwadda islaamka ayaa sanadihii u dambeysayba waxay magaalada burco ka waday dowladdiimeedyo noocan oo kale taasoo arday daayar ah lagu xifdisiinayo axaadiista iyo culuum diini ah waa maxamed ibraahim british shabakadda caalamiga hardwanaag news burco